بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal waxaan idin haynaa maanta sheeko ama qiso aad iyo aad u cajiiba oo haweeney muslimada oo soomaaliyada qabsatay. qisadaas markaa haweeneydaas ha inooga sheekeyn doonta insha allahu tacaala. su-aalana waynu weydiin doonaa wixii ay aragtay haddii ay mucjiso tahay ama wixii ay qaban jirtay iyo bal hadda xaalkeedu iminka sida uu yahay. telefoonka ayay iminka si toosa ugu jirtaa. walaasheen ayaanu yeedhaynaa insha allahu tacaala, kadibna su-aale ayaynu weydiinaynaa bal xaaladeeda iyo insha allahu tacaala qisada ay jeceshahay inay nala qaybsato. walaal soo dhawow. asalaamu calaykum, may maqlaysaa? walaal soo dhawo, khayr allah ku siiyo. bal marka ugu horeysa haddii aad macluumaad naftada ku saabsan aad nala wadaagi kartid annaga iyo walaalaha kale sida tooska iminka noo daawanay. aniga caaisha leedhahaa iyo tiboriya ku noolahay, gabar soomaaliyeed ahay. waxaa rabaa 3 qiso waayo oo riyo lagu tusiyey. hal qiso horta maanta waana qaatay oona cabsi iska oo maasha allah ku tooba keenay, iyo 2 qiso iyaduna khayr leh arab inaa maanta niilo wadaaga. tan waad mar hore qisadaas arkay meelaa ka sheego iyo qofa u sheega waay. maasha allah. waxaa ku nooshay waddanka Sweden, magaalada Gothenburg ama Göteborg loo yaqaano. alxamdulilah. walaal maxaad markii hore bal xaaladaadu sidii hore markii hore ay ahaan jirtay wax ma nooga sheegi kartaa? horta kow markaa Göteborg maahay aniga alxamdulilah. heesaha iyo waxaas horma u dhageysan jirin. markii inta imaadad dhageysa iyo waxaas dadka qofka hadduu dhagaha kaa gishto wixiisa kuma soo gaaray, laakiin hortaada marka lagu dhageysto yacni daadku waa ku qaadaa biyaha si wanaagsan. marka adiga heesihii iyo wixii la dhageystay iska dhaxdalay. heesihii ay igula tageen markii kadib iyo musalsaliyo iyo waxaas. marka heesahaad dhageysan jirtay iyo musalsalka filimaanta miyaa? bisaraaxa marka runtaa laga hadlaa ma ogtahay. si wanaagsan. dee munkar iyo waxay isla galaan iyo ilaahay aayaadkiisi iyo salaadiisi iyo meel islama galaan. waa si wanaagsan oo waqti lumus oo salaada way kaaga lumaysaa iyo cibaadooyin badan. si wanaagsan. marka salaada marna waa iska dukahay, marna adigu waxa shaytaankaana iyo ilowsiyahay. kadib anoo markii qaluusteed isweydiiyahay oo isdhahay saan ma haajinin waxa kugu dhacay ilaahayna yacni uu ii jeedaa. subxaanallah. adoonkiisa ahay maanta isla markaasoo habeenkii marka saas qoraxda u dhacdo jiifti anoo saas isku weydiiyahayo iscanaanaha riyo lagugu imaado. haye marka riyadan waxay ugu imaaday shakhsi dheer oo madow. bismillah. madow waxaa ku tilmaama ma aqaan. subxaan allah, laa xawla walaa quwata illa billah. oo haddan murqihiis kala gogo'san yihiin oo cirkaan ilaa dhulkaan dhiris leego murqa gogo'san lahoo haddoo socahay dhulkaan dhan wuu gariira. haddaa soo xasuusto waa cabsadaa xatee. laa ilaaha illa allah. subxaan allah. oo inuu imaado haddee anoo sida u jiifo adiga meedka camal oo inuu isoo fadhiisiyo oo idhahay yacni guumi oo igu dhahay af carabi camal oo cabsi laa ilaaha illa allah. haye markaasoo gaba inaga qabtaa soo fadhiistaa. ani horta ani qalbigayga markaas waxaa ku taagneed tolow heesa leeba dhageysan jirtee salaadana marna waa dukeysa marna ma dukeen. maxaa horta ilaahay agtiisa kuu jiro maanta ku hor yaalaadi. inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. salaamaad. haye ma igu jirin ba ani dunida ku nooshaa. yacni waxaa umaleeyahay inaa lagu wareysaayo iilka iyo qabriga iyo wixii. subxaanaka rabbana. haye kadib oo iwadi wuxuu ila galay meel ceel ahoo mugdi ahoo sidii adiga tilmaamaha iilkii iyo qabriga camal ahoo indhihiisi inta kale cad waaye inta kale adiga cagaar miyaamaqa waxaa ku tilmaama aqaan sidii yaanyuurta camal ay u birbirayaan. yaanyuurta waa bisada miyaa? bisada.
سبحانك يا الله لا إله إلا الله محمد رسول markaas ilkihiisa indhihiisa la isla cada isla birbirayo iyo hanjabaada oo igu qayliya لا إله oo إلا الله meeshaas mugdiga inuu ila galay oo idhaha hurdaa ku jirta hurdada ka kac ilaaha ku jecel oo idhaha igu qayliya oo idhaha haddana heesahan iska dhaaf iyo waxaan yani oo ku jirto waa munkar heesaha لا إله وإنا إليه راجعون إنا لله kadib aan idhaha waa iska dhaafaa mar dambe waxaana dhegaysahayaa dhaha dee heesaha waa munkar qalbigaaday madoobeyhayaan oo waxa dhan ay ku ilowsiiyahayaan وارون وارون تاوليه walaashan warka ay sheegayso waa dhab weeye qalbiga heesaha iyo balaayada la tumaya ee kamanka iyo miisikada laakiin mar walba ilaahay ana horta waxa ugu mahad celiyaa ilaahay uu jecel yahay raxmad badana waaye qafuur raxiim waaye marna ma ka quustiyo dadka markay daciifaan xataa aan maanta waxaa huwa inaa maanta raxmadda ilaahay laga quusahaynin wax walba dhaco alxamdulillah nacam markaasoo asiga afkiisa igu dhaha ilaaha ku jecel hurdaa ku jirta hurdada ka kac yacan subxaanaka ya allah subxaana markaasaa aniga keliyaha dhanaa ka jareeha ani dhan marka habeenkaas soo toosi waxaa watiyo dhan waxay noqdeen inaa baraag biyo laga geliyo camal inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markaasaa dhaha mar dambe masuubiya waa ooha haddana dadka xaafadda ku nool may ku celiyaano may ku saacidaana israha subxaana allah inna lillahi habeenkaasna qolka keligayaa jiifi guri weyn oo ahay kadib markaasoo idhahay heesahan iska dhaaf mar dambe uu yiri hataa salaada marna oo dukahay sidoo marna qofka kale inta taarku salaadka kaaroon camal oo igu dhahay gaal weeye buu yani qofkaas yani toosa loo waxa loo yani lagu ciqaabay iyo adin marna waa dukay marna waa ka tagay waxa sidaas oo igu heesta kadib ana go'aana gaaray alxamdulillah ilaahay marka riyada saas ugu soo toosay oo leeyahay hanjabaadayo oo yiri mar dambe adoo waxyaalaha suugiyaysa daa ku arkayo waa ku soo noqon mar dambe ay soo noqonin waa ku bariya intaana igu filan aadahaani dunida inaan ku noolahay ma u maleeyani kadib marka riyada saas ugu soo toosay leeyahay way iga yaabtay hawaryartay xataa isla joogni oo iga kiciso qofkii iga kiciiday ahayd marka indhaha kala qaadi oo qol inaa jiifo oo dirbi iyo shubaaka funistar waxaas buu u jeedo waxaa dhahay rabbigaadu wuu ku jecel yahay go'aan degdeg gaar gabaryahay si wanaagsan isla markii ilaaha gacmaha inaa u tagtaa ilaah waxaa jeceshay jeclaysi waxaa necabtaa ilaah iyo ha yaraadaan ha weynaadaan iga reebaan iga madoosi ikraasi amiin insha allah يعني boqolkiiba hoosaa ka saxiixay qofka yaqiinta iyo adiga kalsooni inaad la imaatid waa marka go'aan gaaraysid isla markaas aniga boqolkiiba ilaaha weydiist inuu iga madooyo waxyaalahaas amiin bisaraaxa kadib go'aana la imaaday wixii taleefankeyga ku jiro heesa ahaa inaa qabsaday abaloog wada saara dileed dhahay sheeqyada ku jiro alxamdulillah taleefankeyga qofka arka oo ila joogo ma sha allah انت شيخ عالمك انت قعد معان حديث هنقطه تفسير هنقطه وحوال بهنقطه سودك سيدي ما شاء الله شيخ بشيخ نفتي جعش امانت الحمد لله رب العالمين كدي باقو انصد دادك قروي اونو الحسنة ايحيسانو ايدهانو قول يرا يصوبصد او قول يرا وحيالها الوحريست بورسياشي اي جاكدها لسورتا جرتي سويدن اصوبصدي هوش قروي هدا صودا ميايا ام اسكول كيغ صودا ميستو دادك قروي قنول فردا قسروم قولك فاديق مركي فاديان واكسو عرارا اني دام حاقو انصدي دونيدا waa iska saaranahay maaha aakhira bisa ka fikira ilaahay jeelkiisa la kulankiisa rasuulki asxaabihiisi aakhira bis la ka fikiri jiray ayaantaas bisaraax ana ilaa hadda xataa marmar u shalaayo dhaho ilaahu isoo celi yani iimaankaas wanaagsan ayaantaas dareemay subhanallah markaan khayr allah kusiiyo jazakallahu khayran iminka xaaladaadu sidee weeye alxamdulillah hadda ani ilaa hadda waa fiicanahay alxamdulillah kadib markaas waxaa la imaaday maasha allah wax walbo inaa maasha allah go-aanka gaari heesaha oo dhageysan jiro waxaa lee tusi inaa lee nacsiyo hadda hal muusig meelaa ku maqla an dhan kilaahiyaa dareema alxamdulillah
مسلسل هذا أركو وكرورة تلفزيون جروجين هذا هو يالا ما في رسبي يوتيوب كاسا إسكجلا شيقي كاسا إسكدجيستا تصبيح إذا ما أنت الحمد لله marka hore 10 kuna saliga nabiga ku shalay jiri hadda la ka shalay imisa ku shalay jirtay marka hore ayaantaas ma sha Allah 10 kuna ku shalay jiri hadda 5 kun ugu yaraa 10 kuna ku shalay jiri ayaantaas habeenii maalin la ilaha marka ugu yaraa 5 kun ku shalay jiri لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا رسول الله يا استغفرت sidoo kale inta waa isla simi jiri wax walbaani يعني حق سنة اسبه جري استغفارت طبعاًكم أيانتاس سالك النبي طبعاًكم سبحان ياش طبعاًكم وحوالبو هبين أيانتاس ما شاء الله ساس يعني وإما ذو عنك وحا أركي أنا والله بس ساعة جيفتي والله العظيم وهال ساعة جيفتا بينك أصلاً أرك وهاتنا هالك ساعة إلى طلبي 8 ساعة إلى جيفي ما شاء الله هرددي بالقو بركي والله العظيم والله هل ساعات أنا وحارك الجيش هوريت تيتراد والعبادة است يعني وأنا نفترض على راحية قفك إدهم أيام تصحى دريمي جرد وني جري حقف كان نعلم كاجا إليها سلي جري لا إله إلا الله محمد رسول الله وحاها أيام تصحى ما شاء الله وكو أجري أنا كالواجع لا جري وكبح ماشي dadka haddee mahortooda kuma dukahayd ama waswaas ku guriyaan waa ka carara wax walba awriyartan haddee darmaag nooga imaakaasina itiraade gaarta Caaisha ahayd qolkaanne ku jirtaa meel soo dhex fadhiisad ayaantaas haddee waxa isku barogaraamiya alxamdulillah go'aankay ku jiri hataa naaga iyo nisaa iyo waxa dhex fadhiisatay hadal xun oo imaaha xan oo imaaheesa waxa dhanaa ka carari jiray leena si Allahu akbar Allahu akbar alxamdulillah ilaa hadana waa yani الحمد لله رب العالمين طبعا خير الله كسيو واحد يشيتي إن رياضة دي هوري رياضة وقصة صعدة كدب أنا صاص وتوصل النبي وحي وحي على قرآن كلي إيماني يعني قفك مؤمن كوحي إلهي وقلت لقى لي إيماني سوى نايسن أجمل سعادة نولشي دريمي نولشي أنت الدنيا كنا ولا ما دريمي إيمان كاسوكالي سعادة سوكالي ما دريمي نولشي آخر بس كفكر يجري اللهم آمين إن شاء الله marka saariyaha been lagu imaadano sida si wanaagsan riyada markay qof waxa igu imaada adduunka wallahi alazim walaalkay oo arkin raxmadaas oo kala qof leh naxariistaas oo kala qof leh yani jaceelka waxa ku tilmaama ma aqaani qofkaas oo kala nolosheeda ma arkin oo nuurku wajigiisa baxay ilaa madaxiisa isla qabsaday subhanaka ya allah oo inoo yimaado si galgaceel raxmadna wanaagsan iyo soo kiciyo hurdad oo idaha soo joogso markaas aniga riyada hore ya qalbigayga igaaga taan kiima hadan ku soo noqdiyaa isla wax ma wasoo bilina subhanallah marka indhaha kala furo qofka wajigiisa nuurka ka muuqdo ahlu nuur yahay ahlu khayr yahay arki aanid aleega dhahay qofka qof wanaagsan oo ahlu iimaan ah waxa ka baqina aleega dhahay geesinima leesi ma sha Allah ma sha Allah markaas horteed wuxuu soo istaajiyay sariirta dhabarkeedu soo istaajiyay dhinaca dambe oo igu dhahay indhaha qabso igu yiri ana waa madaxadkaada marka qofka indhaha qabso ku dhahay horta ahlu khayr wuu yahay xoodan indhaha qabso ku dhahay intuu ku geeraba isla haye mar labaad igu soo celi waa madaxadkaada hadane mar saddexaad intoo dhino yiri indhaha qabsa ku dhahay qabso yiri ina jareehayo ay arki gacanto iga qabtay sidbadaxdiisa waxa xasuusto waa gartay markaasoo meel sar qof la saarayo camal ma aragti dareeme oo diyaarada kacaysa camal diyaarad markaas markay kacaysa markaa degeys waa dareeme si wanaagsan markaas dareeme tolo inta lagu wada haysday wuxuuna i dhahay waxbaha ka baqin oo yiri inta ana kula jiro yir shimbira u yiri saas kuma taaba karo amana ku jirtaa igu yiri la ilaha illa allah muhammad rasul markaas adiga 5 daqiiqo wax ka yar iyo wax second ka yar ama leegeeyo oo aniga dareemay jug leesi markaas lugta meesha marka la dhigi waxa dareemay saacado wixii dareemi jir wax ka weyn waxa dareemay raxmad waxa dareemay yani dhibaato la'aan saacado wax walba dareemay maanta
meesha dunida ku nooleed ma ahay intee lagu keenaa isdhahay horta indhaha marka kala qaadani waa xadiiqo weyni badan oo nimcada taaliyaabaysid maanta waxaan dhahay xadiiqadan dunida ku nooleed xadiiqa yani waa beer baad ujeedaa haa beer yani xadiiqada beer oo nimcada maanta dunida taalo wax ka weyn yaalo aa la egeeyey subxaan allah subxaan allah markaasaana beertaa ku dhex cararaa sida cunugkii socod barad bisaraax beertii ani dhanka dhargila ahay markaasaa anoo siduu carcararaayo qurule weyni badan oo qasar ah carabta qasar ee dhahaani soomaaliska guri qasriya macnaha haa qasri ah horteeda laga soo bixiyey maasha allah guriga qasriga ahay marka wasada hililaaca sidan ani waxaan hililaacay eetaas dhaa gurigaas salaaxa andhaga taabaha maanta waa guri marka meesha ku yaalo oo qurxoon qasri oo beertaas ku dhex yaalo beertaas ku dhex yaala qasrigaas maasha allah tabaarak allah marka asaga gadaasheedu taagan yahay tilaabo walba qaado ila jiraa qofkii oo nuurku wajigiisa ka baxay allahu akbar markaasa ani gurigaas qasriga ku mashquulsanaa taaba markaasa dhaha gurigan qasriga oo soo dhalaala xalaga suubi su'aal walbo weydiiyana waa laga jawaaba asa iga jawaaba si wanaagsan markaasoo igu yahay dhoobo oo dahab iyo waxaas laga suubiyo igu yiri la ilaha illa allah muhammad rasuulullah guriga ku wareegsad guriga albaabkiisa weyn yahay markaasa dadku ku dhex jiro ka dhex arkaani guriga dhexdiisa ka dhex arkaysa dadkii ka dhex arkaa albaabkii taaganahay weyn subhanaka rabbana sadaqa allah wa rasuul albaabku weyna taaganahay marka naagahini hadal oo korka ah igala hadlayaan isbruuk robben idaan dhahay Swedish ay igula hadlayaan si wanaagsan soo gal camal ay ugu dhahayaan naagahana nisaa bis waay naaga bis waay ma wax kale ma ku jiro meesha dumar bis waay yani raxmada ka muuqato iyo dhalaalka ka muuqato iyo ibtisaamada nolosheeda ma arkin ka muuqato ما شاء الله ما شاء الله اي dhaha ayaan soo gal camal yani ahla wasahlan camal ay gudaan markaas aan dhaha isuga dhaha beertaana ka soo dhargaha dhaha beertaana nimca taala Allahu akbar Allahu akbar ana beertiyaaba iga badbadatiw subxaan markaas qofka inaa soo noqdo qalbigayga waxa ku taagan qofka magaciisa weydii mar walba wala ilowsiya qofka magaciisa marka weydiyo wax ka darnaaleysi tusiya meesha la geeyay la ilaha illa allah muhammad rasuulullah markaas dhaha inta meeshan jooga ani maxaa waay dhaha meeshan dunida ma ahayna dunida ku noolay ma ahe meeshan intee waay dhaha qofkii inaa soo jeesto si wanaagsan markaas bisraaxa dhaha meeshan as-samaa ula waay markaas ana si waalaha wasi dhankaha dhaha aniga bini aadan qofku ugu ticibsanahay maanta meeshan ka haya maanta ani inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun yani samaa ula ma'a samada koowaad macnaha samada koowaad waayo dhaha meesha maxaa ka haya ku waalaha ani marka ooyin yani saadadii ku ooha farxadi meesha ana ka haya dhaha Allahu akbar markaas dhaha يعني ماشي مكان كهذا وايو يقول هاي انت انا مكان كي هذا هاني الله اللهم زين انا ماشي ساس او سو يدها افعربي يقول هاي ماشي مكان كهذا وايو اوغو سو يقول هاي اقولك انا لا سو غلو هردada laga jifaa ma nolosheeda maalintaas ma iloobi Allahu akbar Allahu akbar ajmal saada maalintaas oo dhan ku noolaa qalbigeyga maalintaas ilaa hadda ma ka tiri Allahu akbar Allahu akbar afar qofood shan qofood u sheeg markaas qof afyartaas qofood markuu sheega dhaha tolo shaydaanka miya dhaha dadkii ahlu iimaanka wanaagsan markuu u sheegay gabdha shaydaanka miya walaale waxaas meesha waxay markaas gabar itirmay oo shaydaanka ilaaha ka mamnuucay inuu rasuulka isku soo ekeesiyo inuu samada tago Allahumma salli ala sayyidil awwalin wal akhirin طبعا حديث كاس صحيح وحديث نبينا كسوغن عليه الصلاه والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام وحو دهي شيطانك صورة إذا ما قاتو شيطانك صورة إذا ما قاتو مركا صورة النبي ما قادن كر اسكمنا متلي كرو النبي محمد عليه الصلاة والسلام طبعا ريال وناكسنوي والرؤيا صالحة الله أكبر ووحاد ياد لو فرحو كدي ومر لبات تنقف كلا إيمان هذه أنا بني آدم عمانت يعني ويقين سنة
marna waa daciifa qofka bini aadanka yani iimaankiisa marna waa kordha marna koru waa runta way ana ayaantaas markii saddexda afarta adkaar wali imaajir ma sha Allah qofka bini aadankan maanta horta gabdhaha waxa ugu waaniya haka quusanna dhaha ilaahay tanna waxa la imaatay yani wax walba go'aan qofka markuu go'aan leh oo hadaf leeyahay uu gaara wax walba الله أكبر وطبعا وتلاذ ونكسن وجزاك الله خيرا الله كحفظه رؤية ونكسن markii labaad oo igu imaaday anoo dunida isoo weerartay hamigeedii يعني معناه مركل markii labaad mar labaad oo imaaday anoo isna markaan labaad oo ku imaaday magaciisa weediyo qofkan si wanaagsan waa dareemi kartaa shaydaanku uu ilowsiiyay hadana dibkii heesta u sheegtay haye ayaantaas markaa tasbiixdii daciifi anoo runta ka hadlaa ma ogdo ilaaha ka baqaahe waa si wanaagsan tasbiixdii daciifi bas cariir dareemi jiro markaa أنا ما أنتو حاسك وحاد دري ما مركا تصبيح البضي استغفارت البضي صلي النبي البضي عرير الدم مليجي لي يعني وهو البوالي سالسيان ما شاء الله عادة دري ما شاء الله علاسك وين ما أنت هدوي ساقبت مركا صوبيو انتاس نحريسها دري الله أكبر الله أكبر كدب أنا صيغة وعلاس دري معي أسائي هري ومالها تنسى وحصوصت هذا قفك أهل قيرك أهي ماتا هذا وماشان كور إيجيها يعني سمد إيجيها markaasoo igu dhahay qofkii ahay oo igu dhahay waxa dareemaysan waa dareemo yaho dhasaasa kugu imaaday ina ku waaniyo kugu imaado igu yiri la ilaaha illa allah muhammad rasuul markaasoo aan xasu biyaha hami dunyaha isoo weerare sama haajirina dhahay aakhira bisa ka fikiri jiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun markaasoo dhahay yani katari min al-istighfar igu dhahay istighfarta badiyo yirsa u badi jirtay لأنه استغفرت وحول بق وفرفرة ويغيري طلبت وحوئي رعسي وولي إلوبين إلهي وكجعلي هو يري ربنا يهديك خير الله أنا حتى مركي قف بنا آدنا هاي خاصة مسلم أو صومالي مركا ضعيفة oo dhibaato walwal igu soo kordho istighfaarta ku carara tusbaxaas walaalka wax walba الله يهديك طبعا وواحد يعدو في العانوية لو عبر قاتورنا هانتي رمانتينا وحينو تهي الحمد لله وحلقو عبر قادني أينو تهي لبس سؤالات بان شعلها هنا كويدية بارك الله فيك الله ku barakeeyo Allahna subhanahu wa ta'ala saadada badan iyo farxadaas aad ku jirtid iyo bashbashka iyo barwaaqada Allah kugu wariyo su'aasha koowaad aan ku weydiinayo waxa tiri markii hore yani waxaan istighfaarta ilaa 10,000 ayaan wadiyay iyo salliga nabiga 10,000 oo maalintii ah marka bal halka hadii aad nagu noqotid sidee bay kuugu suurtowday يعني لأنه يقول صورته ودي أنا هرت بصراحة قانا عليه الماضي قان كجديد وحابر يعني أو قان صدق يعني قيمه ورقة يدو قفت سوناكس قفت مركا هدف لهذا هذه أو وقلب بحث ما أنت شنقن إن صوبيو وهمين كان شنقن صوبي يعني يقول كي جمان تحوي جرا أفرتن دقيقة عمل هذه إيو نستن قنتن دقيقة عمل وصعها سوناكس انت في سعودو الحمد لله waxay soo dagsan tasbiix midka lagu suubiyo oo lagu soo dagsado telefoonka marka aan gurigeyga saas ugu baxo oo fadhiisto baska waa bilaaba tasbiixda bilaabaysa illa iskuulka ka tago hal meelna ma fiiriyo wax kalena ma ku mashquulay 5,000 xira la ilaha illa allah muhammad rasuul وصوبها هداني مرك قاركد وابدي جري وعسلي جرها إن هداب بتسيتد وح عدد أجر كوس عضواي أو إلهي حقي سكو جيرو أو إلهي كوس يجعلها حتى أنا شان مركا كصوب سكول قصاص وصوف ديست ترينكي إلا جورك كإمال مال كلا نقص إليها هاي
laano shaydaanka meel kale hadaa kusoo leexatid ama suuq soo martid ama meel kale soo martid wadan kalehen wuu kugu gaadaa masuubi kartid tareenka saas markuu soo raaca haddana 5,000 ilaa gurigay ka imaado 10,000 saasaa ku xiraa mararka qaarkeed anoo iskuulka fadhiyo oo raastiga marka la gaaro waqtiga yacni oo kafeega iyo waxaas la cabayo waa suubiya haddana maasha allah ama youtube-ka iska galaa shiiqa dhegeysaha oo jannada ka sheekeyhaayo ama naarta ka sheekeyhaayo dunida iyo waxaas ka sheekeyhaayo si wanaagsan maasha allah rabbana yahdi marka dambe waxaa go'aansaday 5,000 inaa istighfaarta maalinta suubiyo oo saliga nebiga haddana suubiyo oo tasbiixda sidoo kale inta suubiyo ee subxaanallah walxamdulillah walaa ilaaha illa te tasbiixda oo dhan meeshay kusoo aroortay maasha allah marka iyo adkaarta haddana laano adkaarta bisaraaxa markaa aqrino waxaa dareemaa cariiri adkaaru sabaaxda iyo adkaar noomta iyo adkaar min istidqaa min noomta dhahayaan oo 2 saac ama la soo dhacdo adag waa ogtaa malaa si wanaagsan marka ma adkaartad cidhidhi ku dareentaa mise wax fiican marka aqrinin markaanad aqrinin waa runta markaanad aqrinin subxaan allah dhibaataa dareema inaan waxba aqrinina dareema oo wax weyn iga maqan yihiin absolutely maasha allah صريح الإيمان وإيمانك ويي ولله الحمد خير بدن الله كسيو رنهانتي قصة داس إيو دعدة داس ضد بدن أيان شعلها إن شاء الله تعالى إن نلشوا دو وحكي بدلي دونتو أين كو عبرة قادن دونتو أنا وان كو عبرة قادني واني نوتا هاي نستيحي نوتا هاي وحن كو ديان إن أي نوتا هاي آد بانو فرح سنة إنو إلهي سبحانه وتعالى كسوها نونيي ورؤية بشارة أهنا وكتوسي markii horena dignin uu ku tusay dabcanna sidaas markaa lagu sheegay ilaahay uu ku jecel yahay alle subxaana wa tacaala addoommadiisa uu jecel yahay qof walba uu jecel yahay oo uu abuuray dadku ayagunbaad ilaahay caasinaya oo ka ordaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala marka horeba uu jecel yahay uunka uu abuuray ciddii isagu diida ilaahay mooyaane walaalayaal waxaan idinkula talinaynaa sida walaasheen ay sheegtay subxaan allah waxa weeye waxa loo yaqaano filimaanta ama heesaha walaalayaal waa ujeedaan raadka iyo saamaynta ay ku leedahay qofka bani aadamka qalbigiisa ay madoobeynaysaa waa la soconaa waa xaaraan weeye waa wax yacni diinteena aan sal ku lahayn weeye waxba ha dhegaysanin wadaad beenaale meelaha ka akhrinayo kule heesuhu waa xalaal ama heesuhu waa sidana way bannaan yihiin heesuhu waa xaaraan weeye ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay subxaana wa tacaala kuwa markaa iibsanaya ku iibsanaya lacagtoodii iyo xoolahoodii waxyaalo mala yacni oo ay ka mid tahay heesahaasi oo ay ka mid tahay filimaantaas iyo waxyaalaha filimaanta ee kala duwan nooca doonta ha noqoto ama filim hindi ha noqoto ama kuwa maraykanka iyo wixii ay matelaan ha noqoto run ahaantii qalbiga inay madoobeynayaan oo ay fitno tahay oo ay subxaan allah dembi iyo macsi ay tahay shaki ma laha ilaahay baan ka baryaynaa subxaana wa tacaala in qof kasta oo daawanaya ama qof kasta oo ka helo qalbigiisu uu jecel yahay inuu alla ka madoobeeyo allaha ka madoobeeyo qof kasta oo muslima oo heesa daawanaya ama dhegaysanaya kii heesaya ee fanaanka noqdina ilaahay baan uga baryayn inuu alla kasoo hanuuniyo walaalayaal waa ujeedaan marka walaalayaal waa ujeedaan istikfaarta sidoo kale faa'iidooyinka istikfaartu ay leedahay wey wax la soo koobi karaya maaha dikriga ilaahay subxaana wa tacaala faa'iidooyinka uu leeyahay istikfaar ha noqoto tasbiixda ha noqoto taxmiidda ha noqoto walxamdu lilahi la akhrinayo subxaan allah ha noqoto takbiirta allahu akbar ama tahliisha ha noqoto laa ilaha illa allah adkaarta si guud ama ducooyinka soo arooray gelinka hore gelinka dambe habeenkii ha noqoto yacni ilaahay agtiisa aada iyo aad bay ugu weyn tahay qiimana way ku leedahay dabcan walaasheen khayr badan ayaa la tusay qasabna maaha qof kastoo wanaagsan inuu arko riyo sidaas oo kale ah ilaahay subxaanahu wa tacaala haweenaydan uu soo hanuuninayey macnaheeduna maaha inuu iyadoo keliya uu jecel yahay dhammaan gabadh kastoo muslimada iyo wiil kastoo muslim ah rabbi subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay riyadana waxa ilaahay u tusay un waa bushaaro iyo inaan inagu ku cibro qaadano wey inaan inaguna ku cibro qaadano siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inolo subxaan allah inoo soo hadaynayo oo uu mar walba subxaanahu wa tacaala inoo tusayo mucjisooyinka cajiibka ah ee aynu indheheenna ku arkayno
ولا شيء aad bay umahadsantahay caaisha khayr allah ku siiyo baarak allahu fiik yani waxyaalahan aadkaan ugula yaabay waxaa ka mid ah cajiibka ah aad iyo aad runtii uxiisanaya waxaa ka mid ah dhankaas adkaarta iyo istikfaarta iyo salliga nebiga oo 10,000 ay tidhi 10,000 aan ku salinayo maalintii يعني وأرين هذا أدق ويروناتي أرين هذا أدق ويا لكن قفكو هدو جوان ليه هجوان أدق وليه سيدا ولا شيء نشيكته وكذا بينكرا إن الله سبحانه وتعالى نجنا هنقوم النايستو إذن كان ربي سبحانه وتعالى هيدكم النايستو كوة ذكرك بتصدا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي سبحانه وتعالى نقول كلمة inaanu ku xusno iyo inaanu ku mahadnaqno iyo inaanu wanaajino oo suubino cibaadooyinkeen waa ducooyinka soo arooreen akhrisanayno salaada marka atixiyaadka kadib walillahi alhamdu ilaahi bana mahadda iska leh aad baan u mahadsan tahay walaasheen Caaisha walaal maxaad ku soo koobi lahayd oo ama tala ama aad siin lahayd walaalaha kale ama dhiirigelin ah oo aad siin lahayd walaalada iyo annagaba ama nasteexa iyo muwaana hadalka ugu dambaysa aan ku siinaya soo dhawow maasanta waxaa dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed oo muslimiinta iyo wiilasha Soomaaliyeed raxmadda Ilaahay ka quusanina laana wax kale waa laga quustaa laakiin tiisa lagama quusto amiin insha Allah waa istighfaarta habadiyana dadka laana hadalkan badan iyo waxa meel la fadhiisahay iyo la murmay wax ma taraayo arintaas ana akiidi warunta way barakallahu habadiyana tasbiixda qofka badiyo waliibana adduunyo aakhiro naam Allah yabarik qofku waxa lagu tusiyaa soo dunida jooga lagu tusiyaa wax walba ma sha Allah Allahu akbar لو كلمات بدور تكون على عليسي ويتديها كقوسنين إلهي سبحانه وتعالى نحريستيسا لا تقنطوا من رحمة الله إلهي نحريستيسا كقوسنين إلهي نحريستيسا وحا كقوستون قفها بارقباء والعياذ بالله أيا كقوستا قفك مؤمن كامر والباء ظني يملون أكسنا يربكي وكفلنا نحريست إلهينا سبحانه وتعالى يسقى بالرحمن الرحيم وي مقعس ورحمن مقعسنا ورحيم وي وكان نحريست جودس كله أو نحريست ممكيس أردن وأنا رحيم والله سبحانه وتعالى ونحريست مؤمنين تا ما ننت قيامه ونحريست جارك أحسين يا مؤمنين تا سبحان الله وربي جوين ويا نحريست بدن غفور كأه إذن بدافك بدن ودود كأه أو أضون كيس شعل سبحان الله غفور ودود ودم بدافع وانه شعلي يعني ما هو كلي قفك الذنب مركو قالوا أو كلي لجمع مسحيه ولا مسحيه ماشي وكوج لي إلهي وحقوق بدلية حسناتي وناك بوجود بدلية مكسو لي بنا وحوه لي أضام كاسي شعيلك إلهي سبحانه وتعالى ولي جام يدري قف الذنب كجشيء أو هدنا مرك الذنب جي عد بني آدم كواسيدة هدي الذنب عد قف كجشيء أما عد فلحنا كلك عدي الحتى سكة استهددوا عفيديد تبا ودن بيسكو ما آمنا يوحو مسكحديسا ما قلبيسا مر والبا سو نقنقون ينكن اما غبدن وا تيبريغي اد arrinta isku qabateena wax kale ha ku aamini laakiin rabbiga subhanahu wa ta'ala hadiya habeen wala caasiya hadiya habeen dambiya laga gala qofkii markuu soo laabto rabbiga subhanahu wa ta'ala uu ka toobad aqbalaya oo dambigii uu dhaafaya oo uu ka masaxaya oo uu ka tirtiraya markaas waliba meeshii dambiga ahayd buu xasanaat iyo wanaagu ku bedelaya kolkaas oo hadana jeclaanaya in Allah yuhibbu at-tawabin ilaahay wuxuu jecel yahay توابينtu waa dadka dambiga gala waliga ma daragtay dambile la jeceliye rabbigi rahmaanka ba wuxuu jeclaaday dambilayaashii subhanallah allahumma ja'alna minhum ya arhamar rahimin ilaahi ban ka baryana inuu naga yeelo annaga iyo wixii islaamaba kuwa toobad aqbalka badan yani toobada badan ee rabbigoodu soo noqda aad bay u mahadsantahay walaashin jazakallahu khairan allah ku xafiyo walaal amalka saalixa ah iyo cimri dheer ayaan ilaahi subhanahu wa ta'ala kaaga baryana halkana rabina dhaho walaalaha Soomaaliyeed muslimiinta wiilal iyo gabdho say u yihiin qaastaan gabdhaha ku dhax jira mar walbo oo waa isla fadhiisana gabdhaha ahlu khayrka waa ra'yiga la isku darsadaa gabdho maanta dhibaatada iyo fidnada dunida badatay marka waa dareemi kartaa qof walba yani dhibaato iska haysato gabdhaha qaar wuxuu ku dhahayaa aniga
walwalaa idili kana idil markaasa aniga kula darsada istighfaarta badiya markaasi ani dhahay Caaisho aad waa nooga fiican tahay dhinaca istighfaarta laakiin ana subhanallah hadaa dhaho leedahay gabar kamid ah gabdhahaas wareesti dunida dhan inaa qaad leedahay dareema markaasa dhahay shaydaanka waayo waxa saas ku culeesiyo oo ku nacsiyo waxa ha dhageysani لأنه وحياتي الجبدة ستة وأقاناني ولا شيء عمله وجعله لأنه أختي في الله واي جبدها وعند حق لأنه أسور السنة قال كود يقولها عند باتاني هي ستوحدها إلهي كقوسن استغفار تبادي لأنه وحول بيقو ففوري حتى مركو وأكدالني يقولها يعني كلمة تسوى أكدالني مركا مقالو أنا وأكحناقا ما إلهي أكداش والعياذ بالله رب العالمين وذنبي وين معصوين والعياذ بالله رب العالمين امتحان waxa qofku bini'aadanka wax marka oo dareemaysid نعم laakiin imtixaanki ina ku sabreysid ina ku guuleysid qof aan imtixaaman mala rasuuladii aan imtixaami jiro oo ilaahay wax walba ma sha Allah oo tahar ka dhigi anako marka dad ku ugu liitanay maxana markaas ha ka quusan ilaahay waa daali ee ku dhahayaan ha ka daali لأنه الشيخ يوحس وحنا أقباني إلها مسلم قال لكو وطلنا وتربي قاساه سطا دعاء بضي إلهي يوكاليغا مرول بنقو مركا كاليغا تاي مرول بو إلها ودولة ما يهورتا أرينتا قفو كليدا ونقانيو فايدوين ولا هي خسارة فربدنا ولا هي إنه قفو كليجي وكدح بحو دتك أمام بالشدة مسلمين تاه inuu ka dhex baxo taasi waxoogaa dhibaatooyin kalena way leedahay laakiin marka salaada ama cibaadada ama sadaqooyinka oo kale way fiican tahay mararka qaarkood inuu qofku ilaahay uu la gaar noqdo oo ilaahay uu caabudo si gaar ah cibaadada suubiye sida ka wadaan si wanaagsan ma sha Allah khayr Allah ku siiyo طبعا arrinta aad ku celisay oo ahayd istighfaartu aad iyo aad yani ha ka daarina qofka maanta dhibaato dareemaya ani waxa dareemi karaa istighfaarta ka taali نعم wiil gabar waxa ku waani istighfaarta badi waarun walaal istighfaarta waxa lagu helaa yani waxyaalaha lagu helo yani subhanallah lama soo koobi karayo waan xasuusanaa ilaahay subhanahu wa ta'ala waa fi quraankiisa ku tilmaamay fi suurati nuh nabi nuh inooga waramayay markii uu lahaa qoomkiisa istighfaarta badi فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وأنهارا إلهي ونوت المامي سبحانه وتعالى وحان كده هيبويل إلهي الدم بداف ويديست استغفار إلهي ويديست من نبي إلهي من الدم بوغلي نبي إلهي محمد يسوق من الدم بوغلي نبي نوح قرانه وحو لهد لا يقوم كيسي والله الدم بداف ويديست إلهي بسمد ايدين فرأي او روب ايدين كيني او حولها يعرورتي اوبتك بايدين براكيني ايو إلهي وبحي سبحانه وتعالى نبي إلهي بل من نب من الدم بوغلي معصوم يانوهن هايو معصوم بوها حتى لو وحو ليها نوحن استغفارت إلهي الدم بداف ويديست 70 مرة ما ننتي تطبات شير من الدم بداف إلهي ويديست سبحانه وتعالى وهكذا إلهي بين فري سبحانه وتعالى استغفارته وفرها جوش أوردن وفرها ليبانتو أوردن قفك هدي ودن بداف إلهي ويديستو إلهي رساقتي وفيدنيا إلهي رساقتي وبركانيا وحن يريح تاو قعنته كوهيو أيو الله سبحانه وتعالى وبركانيا إلهينا إلا تجابي يعني كان نقول نارنتي يعني وين تجابيه ويسعويد إلهي لما تجابيه سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين إلهي وحسوا يقين يا إيمان دب أهوي إيمان دب أهوية لكن وانت تشابين يا بالمانتا شن كنوا استغفار بالمانتا أخنية بالوانفيرين يا هدي إرساقات دي أي بلارتي يعني إيمانك أما قلبك نوع عصو كلا أهوى تجابه إلهي بقفك سيو تجابين يعني يقول سيدا سوين كما قادس ويقين دب أهوينات كهشا هدي عن إلهي استغفار ويدستي إلهي توبته ويقع أقبليا حوله إرساقته إيوافجينيا إيبركينيا حولها يا أوبتك يا عرورته ودمانته ويبركينيا سيدا سألوه فكرة يقين با إلهي سبحانه وتعالى الله يماتا يظني وناكسن يملا وناكسن بوزيتيف بالنقطة يعني قف مرول با إلهي سبحانه وتعالى رجو وناكسن كقبا طبعا كعب سنية عقاب كيسي عدديسة لكن هذا رجو إلهي كقبا سبحانه وتعالى
naxariista ilaahayna aan ka quusanaynin walciyaadu billah ciddii ilaahay naxariistiisa ka quusata kaasi waa min alkhaasiriin wey waa dadka khasaare weeye walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina ilaahay barya istikfaarta weydiista towbadda ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiista rabbigeen subxaana wa tacaala wayna jecel yahay wayna soo hanuuniyey islaam buu kaa dhigay ehelkaaguu muslim ka dhigay dadkao dhan subxaana allah waxaasoo malaayiin iyo balaayiin dadka ku nool oo dhan adduunka oo dhan ayuu ilaahay kaa doortay marka ma ilaahay baad col la noqonaysaa walciyaadu billah ilahay sidaa kuu sharfay ee muslimka kaa dhigay ee diintii ugu wanaagsaneed ku siiyey ee nebigii ugu wanaagsanaa nebi kaaga dhigay ee sidaa kuu sharfay ee ku hagaajiyo ku quudiyey ilaahaasi subxaana allah wuxuu mudan yahay in loo mahad noqo wuxuu mudan yahay in loo shukri noqo wuxuu mudan yahay in loo cibaadaysto wuxuu mudan yahay inaad hadhiyo habeen aad maqashidood adeecdid hadalkiisa iyo ficilka uu ku faray inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad maqashid oo aad adeecdid ayuu mudan yahay rabbigeen subxaana wa tacaala kol haddii qofkii xuquuqtii ilaahay uu ku lahaa uu ka soo baxo rabbigeenna isagaaba xaqiisa saaray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu addoonka ama addoommada muuminada ah inuu ilaahay subxaana wa tacaala nolosha barwaaqada abidka ah inuu gelinayo ilaahay baa ballan qaaday subxaanahu wa tacaala intuu adduunyada joogana wuu ku tusayaa sida walaasheen oo kale iyo dad yoog fara badan oo kale walaaladeenna ayuu ilaahay ku tusi doonaa insha allahu tacaala khayrkaa uu ku tusi doonaa inahaasana insha allahu tacaala kusoo gebagabanaynaa barnaamijkeenii aynu kaga warramaynay qisada cajiibka ah ee cibro qaadashada leh subxaana allah idinkan walaalada ina daawanaya waxaan ka codsanaynaa in aan iyaguna ducada aanay naga ilmaamin markaa noo soo duceeya walaaladana subxaana allah qofkii walaalkiisii yani dahri lgayb yani isagoo ka maqan u duceeya malagii rabbi baa isagana u ducaynaya marka aynu isu ducayno idinkana allah idin barakeeyo walaashayna allaha barakeeyo dhammaanteen ba allahina barakeeyo kuwii ku kulma carshiga raxmaanka hoostiisa yani ama hooskiisa baan ujeeda ama harhkiisa kuwii ku kulma rabbigeen subxaana wa tacaala haynaga yeelo kuwii jannada raxmaanka firdowsi laclaa kuwii ku kulmay ku wada sheekaysta maca nabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiin ayaan ilaahay weydiisanaynaa kuwii macooda uu ka dhigo rabbigeen subxaanahu wa tacaala hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu